السلام عليكم أصحاب دمانتم هذا هو السلامي كسر دواء channel كنا مركل فضلا هدي أنا سبسكرايب كرين channel كا هإلو بين مركل عليك عاوزنا هإلو بين فضلا إن سبسكرايب كريسي channel كمرة دان الصوب وقت فضلا أنا قلنا خليني saan hore idinku sheegay marba inaan ku dheeraado hadalka saan hore idinku sheegay waxa jirta channelka waxaan bilaabay video series muddo aan ka fikiriyay inaan trading bilaabo laakiin aan ugu dambeyn 10 iyo wax igu filan aan qaatay practice-kiina inaan bilaabay sidaa darteed waxaan jeclaaday practice-ka inaan idinla share gareeyo si aan idinka helo qayb taageera iyo qayb maxaan dhahay ila bilowda aniga soo qaybta iyagu ku fikiraysa inay trade bilowda ama 10 hadda qaadata waan isla trade galin karnaa channelkeena wada fasaxantiin insha Allah waan ku wada hadli karnaa chatting comment waad soo dhigi kartaan marka hadda insha Allah فيديوهي هراء أنا كجسوا هذا information سأقولها تعرفتي هذا واحد ربع إن شاء الله أنا وحوجا إذا تصو دور chance on هلا إيو تريدي عن هذا إن شاء الله عن analyze كريه because هذا one trade كريه لكن because chance وهاين إنترنت وحكون دفني إنه إضافة ما كعب هذا one trade كريه وحنون هلا close with profit anyway marka koowaad waxaan ana fiiriyaa fundamentalka intaan waxba trade gareyn waxa fiican inaad iska fiirisid forex factory ama wax maanta jiray yani because wax walba la kulmi kartaa ani waxaan iska jeclaanaa meel aan fiiriyo and then aan iska fiiriyo so wax walba aan ka shakiyo waan iska dhaafaa beerkooda ay ku jiraan inkastoo jeclahay mar walba beerka uu GBP ku jiro GBP jaban haddaan arko impact ay ka sheekeynayaan ama wax markaas eeda maanta newskin eedu ku saabsan yahay somehow waxaas effect totally sen oo sameyn waa iska shakitiraaniyo ama sidaasan jeclahay laakiin hadii aad newskin aad akhriso jeceshaa waad akhrin kartaa faylka fur waxa dhacay eeg maxaa dhahay wax fiiri wax jira eeg mar somehow waxa laga yaabaa inaad fursad ahaan aragtid waxa maanta jira inay fursad bas ka noqoto laga yaabaa oo markaas ayada aad aragtid inuu noqdo fursad tusaalaan in qiimaha lacagta hoos loo dhigay in ama maxay sidaa somehow inuu xataa doorasho jirto waxba la iska soo sheegi karaa doorasho gobol wax ever so I don't care anyway halkan waan fiiriyaa laakiin haddaad fiirinin fadlan fiiri aad bay muhiim u tahay so trade-yada aan ugu horeeyo horta trade-yada aan idin dormar aan trade karey maanta aan fiiriyana waxa weeye USD Japan Euro Japan iyo GBP Japan Euro USD afartaas trade way insha Allah san oo analyze kari waxaan kaga soo bilaabay hoosta kan aan ku taaganahay baan eego waa Euro Japan waan idin sheegay Euro Japan waan idin sheegay tamam aan dhaho Euro Japan waxaan ka soo bilaabay anyway mar walba daily trading ga so hadaan daily trading ka soo bilaabo waxaan jeclaanaa daily trading ka soo bilaabo hoos aan soo socdo ilaa marka u dambaysa aan eego trading ga saan u soo wada kolba aan eego meesha uu maray so as you can see trading waxaan sameeyay trading waxaan sameeyay trade-yada aan jecelahay ma laakiin aan trading waxaan sameeyay and golden line kaas aan fiiriyay waxaan uga dhigay kuwii horena support and resistance waan uga dhigay kan dambana support aan uga dhigay so golden line ka waxaan uga dhigay dhowr jeer baa la tijaabiyay as you can see here dhowr jeer buu ahaa resistance button and then again yani line kaas waa ku dib ku soo celiya again resistance iyo the moment oo halkan dhaafay support waan u isticmaalay as you can see dhowr jeer baa la tijaabiyay waan uuna kana noqday so halkan line kan markaan bartan mariyay ayaa chance inaan ku dhufto up kabacdina inuu halkaas i gaaro upkaas waa fursad ay ahayd haddaan hadda tishaabiyo inta aan material inta beep ay tahay let's see so beepka halkan aad ka eegtay because dhowr jeer baa la tijaabiyo waxaad ogtahay marka saddexaad uu bartan kusoo noqdo inuu kor uga noqonayo so adi meelahan aan soo dhigta line aan lacala because meelaha dhowr jeer baa laga celceliyo uu noqon karaa so inta beep uu yahay aad fiiriso waa 100 iyo something beep يعني 139 beep weyn 139 beep weyn 139 beep wallahi wax yar ma lot size kaagan waad ku darsan as you can see wow whatever يعني at the same time waxaan ka cabsanayay inuu isbedelo because line kan inta badan USD ga trade kooda aad uma jecli waxaan ka wada jabaankooda so dhowr jeer horena aan soo ararkay so aniga inta badan GBP Japan aan ku fiicanahay mar walba oo arkaan beariskaas aan aad u jecelahay laakiin beariskan xataa way shaqeeyay so halkan rectangle baan ku arkayay dhowr jeer buu top ahaa then uu soo jeexay as you can see rectangle kan waxaan dhigi karaa inuu ahaa rectangle you know hadda saa u fiirsa bearish yes so the moment uu halkan soo dhaafay still maxay fiirahada aan ku tilmaamo as you can see inuu line kan dhowr jeer buu kugu soo dhaftay so bearish mar walba uu soo dhaafaa right so mar walba ma aha like yani probably aan ka hadlaynaya wax la hubo ma so halkan baad ka soo noqon so maxaad ku tilkilisan line dib u noqdo hoos u soo dhaca as you can see line sidii buu noqday because bearish waxaad ogtahay rectangle ku dhex sameysmaya marka uu laba jeer korka kugu dhufto saddex jeerna hoosta kugu dhufto marka saddexaad inuu inta badan ka diso as you can see very soo bilowday
laba jeer korka ku dhuftay waan rectangles uu samaysan yahay aragtaa wuu ka kacay then markii afaraad mise markii shanaad weeyaan markan yani meelaan adiga kan hatirsan hada aragtid whatever uu soo jeexay yani waad ku tirkalaysan marka shanaad inta badan soo jeex dhowr jeer hore laga celceliyo si 1 2 3 so korkana waa laga soo celceliyay so linkan buna ahaa bahalkina uu ahaa trend line down uu ahaa like tamam marka kan an golden line kan marka waxaan isticmaalaya inuu yahay as a resistance this one support inuu yahay so resistance in door jeer jabi kan support so moment aan wax sugayo waxa weeyaan hadii line kan bartan marka la ku soo noqon lahaa inuu up noqon lahaa so as you can see line kan the moment halkan ku dhuftay up buu noqday laakiin maxaa jirtay dhowr jeer halkaas line kale laga tijaabiyay oo line kaas uu kookaya marka waxaan sameystay halka horizontal line baan sameystay right so horizontal line kan waxaan sameeyay aan soo dheereeyo wait sorry guys halkan marka waxaad arkaysaan aniga saan sameeyay way line kan iska delete gareeyo you know horizontal line door jeer waxa hore loo tijaabiyay adiga laba line waad ka dhigan kartaa directly laakiin ani markaan rabana line man ka dhigaa markaan rabin and si fahmi karto tusaale kan oo kale laba line buu fiican because door jeer hore kor ooga baxay isagoo waxba ku sheegeen so that means inuu la tijaabiyo ka soo qaado right makes sense now halkan marka aan line ka soo dhigtay dhowrka jeer hore ilaa uu barta ka soo noqdo dan halka maxaan ku sheegay inuu line barta ka kacay uu ku dhufanay hoos oo soo dhacay right so line halkaas iyo line kale laga soo tijaabo horizontal halkaas soo dhigtay tamam oo dhowr jeer soo tijaabo waa very hard line ya oo si fiican oo adag weeyaan because very hadii line ka mar la taabto waxa ka wanaagsan in double times la taabto hadii double la taabtana waxa ka sii wanaagsan multiple times la taabto mar walba waxaan maadaama waxaan la hubin accurate wixii ku sii dhaweynay yani prediction kaaga kolba yani hadii aad isticmaadad rabtana prediction dibadda waxa ka dhacay fiiriso oo gurigaaga ku jirto as long as kolba albaabku si dhawaato prediction kaaga dibadda uma sii dhawaanaysa so the moment it banaanka soo baxda prediction kaaga 100% ma ahan laakiin prediction kaaga dibadda waxa ka dhici kara markaas ayada waa dhex taagan oo garan kartaa that makes sense now marka maxaa sameeyay line kan aan dhigtay support kan u dhigtay markii hore resistance yaha momentigaas uu dib uga soo noqdo ku dhacay so moment halkan uu ku dhacay maxaan ani qiyaanaa fiirinaya inaan helo confirmation line because waxaan iska noqon karaa confirmation line oo confirmation line waan helay see confirmation line kaas waa xasankaas so daama mutaxadarkaas inuu line kan noqonayo because abu samee dam sida that means inuu line kan aafaynin inta badan uu kor u dhaqaaqay ayaan ani confirmation aan so that moment halka chance baad kaga dhufatay up waa daily trade ya chance baad kaga dhufatay up then that moment wax weeyaan still waxa haysataa fiiri line ka support laakiin hadii aan hadda sida golden line oo kale u sameeyno let me check see because markuu sidan oo kale yahay fiican baa inuu golden line ku yaasi as you can see right now meelaha idig kana xadiis sameysaa soowad meelahaas idhig so line ka dhowr jeer baa la tijaabiyay fiiri saas uu ku fiican yahay because markaas ayada wax badan buu ku dhibireynaya so that moment waad ka kacday hadda markii maxaa rajeynaya lacala hadduu mar dambe line kaas bartan kusoo noqdo laba mid waan labadaba aan qiyaasanaya haddii uu baas gareeyo bartaas baan lahaa haddii uu bartan soo baas gareeyo weliba line kan aan sii wadaba haddaa rabtid line kan saa u dheereeyo haddii uu bartan ii soo baas gareeyo waxaan rajeynayaa inuu bartan iigu soo dhufto so meelahan aan usoo dhigani and that's imsa people hadduu meelahan ii soo dhaafo probably 100 people weeyaan marka halkaaba iigu dhufo because marka hore halkaa ka noqnoqda dhowr jeer see ya meelahaas dhowr jeer buu ka noqnoqda marka 85 people weeyaan 85 people ufma right so prediction keena insha Allah videoga dambe aynu ku sheegnaa sida resultka u dhaca laakiin aynu hadda si qoran wax walba aynu si eegno laakiin maxaanu sameeynay line kala halka iyo la fiiri on resistance u dhigtay so line kaas inuu ka baxay in kale ma kala garanayo so maxaan ku kala eegayaa line kan wax ka baxay ma arkay si line kan hoos buu uga soo noqday so maxaa fiiriyay line kan hourkiisi wax ay fiiri amse 4 hour aan aad soo durqo and 4 hour ka maxaad aragtaa still line ki inuu ku dhex jiro ku soo wada tamam line ki wali inuu ku dhex jiro ood aragtid keep ka noqday hoos and still no confirmation why still line ka lagu dhex jira and still 4 hour 1 hour aan fiirino no still nothing at all وكب حي لكن وحس وح كنت سكر ما هنستيل هوس بوجا صداعي and as you can see probably هدوسن هل كان دافن
misal wuu noqon karaa no still aan check garayno minute because we have still time ya aad ku sii fiirin karto marka aligning kaaga dhigato fadlan wax mar walba waxaa fiican inaadan hal time hal minute ku ekaan ama hal hour ama hal second haddaad secondka isticmaashid ani second ma isticmaalin minute oo kale tusaale ahaan minute oo kale waxaad sameynay fadlan minute-ka ha ku ekaanina hour ka fiiri again waxaad fiirisaa day ka fiiri week ka fiiri month ka fiiri sida adiga kolba aad u sii websitid prediction kaaga tamo line-kan حتى إنه كبح أو كلا هدوء تصير still ما آمنيه because still confirmation مرة so the moment in confirmation كلا أركم حس كده كرر لاين كنيو أنا أحكم كجرب تباي لأن إنه كروك أو كلا لكن still وحنا سنعين نسي إنه كوكلا 30 minutes كان هذي ذو لاين كان أنا هالكن أنا صورتك صوبت أنا صورتك وعدين شيء يا أصحابي لاين كان هالكن صورتك descending line بيجوا إكا so ما لها أنا لقيها أنا سيف عن وارد 1 minute كان تو as you can see wait 15 minutes tick as you can see descending line وين يعني halkan ku dhiga line ka aad si fiican u aragtid descending line وين halkaas aad aragtid right so descending line kan waxaan sababta aan halkan soo dhigay haween line kan descending buu ahaa soo dhacay so descending line inta badan hoos no descending line ma ascending ban ka wada ascending la lahadaya asxaabta because hoos buu ka soo bilowday si up soo ahaa line markuu ku dhacay ascending line inta badan kor buu uga baxay the moment uu halkan uga baxay maxaan hadda leeyahay bartan the moment uu bartan uga baxay maxaan haystay chance inaan barta bike kaga dhufto because ascending line kan aad aragtid hoos line ka soo socday markii hore aan ku tuso ku calaamadayo better all right so line kan inaad meelahan oo kale inuu buy kasoo ahaa sell buy again meelahan oo kale inuu kugu soo dhifto kasoo qad so the moment bartan ku soo gal line kan waxaad arkaysaa inuu soo ahaa line kan buy inuu soo ahaa right so ascending line kan sidan iskugu soo noqnoqday whatever ee soo socday soo yaraanay whatever ugu dambeys ascending line inta badan kor buu baxaya wax la hubo ma ugu dambeys laakiin kor buu baxay ascending line and then ascending line kor buu baxay laakiin ani line kan aan sii dhigtay because line kan markuu kor uga baxay waxaan karaa inaan line kan still sii fiirso the moment uu line kan asaan kan ku soo dhifto aan ka tiraa waxaan the moment uu asaan kan ku soo dhifto let me check hada aan color ka bedesho halkan asaan haduu igu soo dhifto fiiri laba chance labadaba waan haystaa oo ku talagalayo hadii weeyaan line kani kor buu soo dhaafay the moment uu bartan igu soo noqdo oo asaan noqdo line ka waxaan ku talagalayaa inuu kor u kaco right because hada uu asaan bartan iga soo noqdo inuu labada fursad haystaa inuu maxaan dhahay asankas uu sel kugu soo dhufto barta aad ka caadi and then aad buy karaysid labadaba aad kartaa laakiin markaas ayada waa inaad sugto confirmation still aad u dhaqaaqdo laakiin ani waa iga bilaan ahaan ya waa qorsho because of dhinaca u dhaqaaqo still waa fursad ya ma khasaarinaysid so aan u soo dhaqaaqo wait online kaas ka delete karaya not moving sorry guys yeah line kan halkan sii dhigtay so this line and markii hore u dhigtay support waxaan ka wada resistance now support uu noqday so probably now waxaan qiyaasinayaa xawiyaan line kan inuu kor u kaco right waxaan ku talagalay hadda xawiyaan line kan because line kan haduu hoostan isu dhaaf ilaa ku talagalay inuu sel ku dhufto dam uu kor u kaco right maadaama line kan online kii kale sii dhigtay dhaafay yeah waliba aan rectangle ka dhigo because it's better let me say rectangle here rectangle maahan yani waxaan ka wadaa line kaas sida u ballaaran ma jeclahay so now hadii uu line kan isiyo confirmation yeah confirmation buu ku siiyay then now up right waxaan ku talagalaynaa up make sense now line saas oo kale ayaan ku talagalaynaa insha Allah waan fiirinayna waad eegi doontaan idinkana insha Allah 1 minute xataa hadaan in laga yaabo in jawaabteenu sax noqoto si ya jawaabteenu waa sax so as you can see line kan dib u soo noqdo ku dhacay and then waxaan sugnaa waa up insha Allah jawaabta halka dambe aynu ka eegna hadii line kaas uu halkan naga soo dhaafana uu bartan ka soo meelahan ku soo dhaco yani halkan soo dhaafana waxaan sugaynaa waxa weeyaan barta ayada inaan sell kaga soo dhufano and the moment uu halkan hit gareeyo inaanu again buy ku dhufano waa fursad aad u wanaagsan so adiga waxaad sugtaa waxa weeyaan in uu line kaas uusan bartan ku soo dhaafin that moment inaad wakaas still up ayuu socdaa waana si wanaagsan hadii uu bartan ku soo dhaafana in aad sugto the moment uu barta confirmation ku siiyo aan hanta ku sheegay confirmation uu ku siiyo laba line oo iskugu xiga laba line oo iskugu xiga marka uu ku siiyo
that moment inaad markaas sell kaga soo dhufato because still now till halkaas waxa weeyaan line dhowr share uu ka noqdo halkaas uu ku soo dhufanayo and then that moment inaad hadana again fursad kale oo buy halka kaga dhufatid halkaas ayaa ay qorshaysan insha Allah videoga intiisa dama aynu eegnaa fursadaha sida ay noqdeen insha Allah aynu aadno beerka ku xigkan beerkeena sida aan sheegay noqday buy ayuu noqday alxamdulillah aynu eegno GBP Japan oo kale asagana maadaama on kuwan analyze kaliya hadda uu ku jiro so GBP Japan hadda maxaynu aragnay waa Euro Japan tamam so GBP Japan aan ku dhufto aan sidaan u analyze kariyaa adila aragteen GBP Japan waxaan soo analyze karaystay sidaan fiiri aan ku tago daily-ga ama 4 hour kan ku tago GBP Japan sidaan aan soo analyze karaystay way better to make it 1 hour GBP Japan waxaan dhahay neo baan eri GBP Japan waxaan dhahay neo trending-gan waxaan eri haddii aan samaysto support line oo halkana see uu dhowr jeer ka noqday uuna tijaabiyay dhowr jeer ilaa barta uu sii soconaya hadda line-ku iyo halkaas laakiin aan ku joojisay tamam bartaas adkay qaban as you can see yeah still support right dhowr jeer baa tijaabiyay that moment waan dhahay halkaas support ba ay tahay the moment uu bartan ku dul dhufto maxaan rajaynayaa inuu up ku dhufto ilaa dhinacaas see so aan markaa maxaan sameeyaa halka ilaa halkan aan soo gaaray waxaan iri line kale aan halkan soo dhigtay waxaan iri maadaama oo dhowr jeer halkan laga celceliyay dhowr jeer fiiri see power line weyn aad mid powered line oo aad u xoog badan halkan dhowr jeer laga celceliyay line horizontal ayaan dhigtay so waxaan iri line horizontal kana iska dhigaya ku talaga line horizontal ka haduu kor u dhaafo fiiri line horizontal ka haduu kor u dhaafo see dhowr jeer buu kor u dhaafay as you can see buy qurux badan buu dhaafay and then sell buu kugu soo dhuftay the moment uu line kaas kor kugu dhaafo maxaan haystaan inay fursada inaan buy ku dhufto fiir hadaba aniga ku wax xariiqdaad markaa ila aragtid 15 minute kii aragay si qurux badan u aragtid yeah 15 ka markaa waxaan sameeyay the moment uu line kan an horizontal ka end dhigtay uu ku dul dhaca ayaan dhahay maxaan sameeynayaa sell buy baan ku dhufanaya as you can see waxaan sameeyay line inuu sidaan u soo bartaas laakiin inuu buy qurux badan dhaqaaqayaan jeexday hadan as you can see alxamdulillah wuu noqday and buy ayuu noqday so fursadaas oo kale trade qurux badan buu وعدي تريد كرسيا مركا هالكن كلنا محن جحده كترجل بيكوسون خساري كلا كترجل محن جحده هدي لاين كان أو horizontal كان صور ضعفه وإلا لاين كgolden كذا صور ضعفه still one سويا because I have still وحن رجعي أنا استامبيشن كي وين لكن the moment أو برتاح صور ضعفه مركز إذا محن كترجل أنا سكحر تريد كاس أما تريد كاس أن سوق إنتاس بعد عندهم حي تريد كاس إن سيل كدفته مركب محن سمي يعني تريد سيل أيان سمي as you can see سبعان وعرفتي حنسوي تريد كهوس صداحية ومركو دفني وهوس صداحية لكن تريد كأنه محنون نقطة كي horizontal كأن the moment أنا أركين horizontal كوصل في confirmation ويسي محنكو دفتة sell أنا buy and then as you can see buy أيو هذا still فرصة كلا هذا سدا حتى لاين كاس وصل كوصل though هل كان دور شربة تعطي يميلها دور شربة ميلها أصلا تعطي confirmation كلا هذا سدا هذا لاين كان وكر ودافع the moment وبرتن كر ودافع still confirmation ما سدا يعني هذا confirmation هذا شيء يعني كوضع حكاس إلا حكا باي إنه صار نقطة أي أبدا تبقى بقول because أرجع على right أرجع على لينك اللي باي إنه هذا أي أبدا so the moment وبرتن كوجود صار فرصة كلا هذا ستها أو محيا sell again حكا وضع باي the moment وبرتن إن confirmation كساسي إنه هوس صار دافع sell هذا ستها أو محيا ولين كوجود صار دفته so trade واحد أنا إن هير كلا أيون نقطة أنا كنت بدنا trade كنا لغد the trade كان successful أيون نقطة result هي سنوين عارفين USD Japan وحنا ملينا إنه هكذا GBP Japan right so Euro USD عندنا أساسا وأنا لاسكري so Euro USD جا ما حنسميه Euro USD جا وحنسميه Euro USD جا let me show you and 1 hour كان تو because 1 hour كقرح بدن right so Euro USD ما حنسميه trend كان up وسعودي ما عنده trend كان سنتام هي little bit M right هالكن little bit M أيو صادق لكن so وحنا هالكن إنه سلكس وسعودي فيه عن كوير حريقة ديك هذه that would be better يعني color كنا بدل show somehow color حكي هركي no واحد يقدر يكتب blue كاس يعني هركي كلام محسن ميلان كان down trend بصوها إلا هالكاس so down trend بصوها إلا هالكاس then up وصو نقضي so line down trend يسوها أو M أيان واركي أنا كويانيها and line trend أو M أيان واركي so the moment
usoo dhaafay so marka mkaas halkaas dhowr jeer kasoo noqday maxaan ku talagalay inuu marka saddexaad jaro marka muxuu sameeyey wuu soo dhaafay see yani trend line buu ahaa horizontal baan u sameeyey m ahaan oo kale ayuu igu sameeyey oo adoo ii sameynaya rectangle-ka ay doogin inuu kugu dhuftay halkana uu kugu dhuftay so the moment kale waxa weeye inuu ka tusayo aad ku talagelaysa oo kale ayaad ku talagelaysaa laakiin aniga trade-ka ma gelaya trade-ka waxaan u qaadanayaa past because mar walba markaad trade garanayso waxaa fiican pastigaaga inaad fiiriso si aad markaas ayada presentiga aad taagan tahay aad ugu adkayso inaad ku saxsan tahay so adigoo marka presentigaaga iyo pastigaaga qaadanaya inaad future-kaaga ku predict garayso waa qaacide aan iska isticmaalo aniga so aan line-kan iska delete garay waxaan sameeyey okay so waxaan tegi 15 minute iyo sidaan asxaabi u qorsheeyay aad ila aragtaan halkan horizontal line baan soo dhigtay waxaan sameeyey horizontal line-kan dib baan kasoo tijaabiyey yani dib ahaantaas waxaan sameeyey ilaa halkaas dhowr jeer in laga soo tijaabiyo waad aragtaa tamam dhowr horizontal line baan sameeyey dhowrkan horizontal waxaan ka wada ayaan kuu sheegaya igu degdegaya dhowrkan horizontal waxaan sameeyey horizontal line-kan waxaan soo sameeyey dhowr jeer maadaama oo la taabtaabta line-kan uu ka dusay the moment xataa barta ka dusay ayaa maxaan iri new horizontal line-kan bartan aad buu qurux badan dhowr jeer waa laga helay tamam marka the moment halka gaariya trade-kan waa ka wana u hirgalay up buu noqday laakiin sababta uu noqday waan kuu sheegaya waxaan sameeyey horizontal line-kan aan halkan soo dhigtay kabacdi waxaan sameeyey line-kaas waxaan iri the moment uu bartan ku dhaco waxaan haystaa raja inuu up u kaco laakiin upka inta uu soconayo ma garan karo because halkan dhowr jeer baa laga celiyay waana mid xoog badan as you can see line baan halkan dhigtay dhowr jeer baa laga celceliyay dib u raac dhowr jeer baa laga celceliyay as you can see so maxaan dhahay line-kan yani that moment ma garanayo haddii doon bartan markaa selkal kaga soo dhufan lahaan ku xariiqa saasaad ku fahmay maxaan sameeyey line-kan up baan iri kaga kacayaa bartan because waa support line laakiin maxaan iri resistance ilaa ku gaaraya ma degdegin meelaha korka kama dhigan maxaan iri haddii meelahan uu gaaro baan dhahay inuu kasoo noqdo laga yaabo sel kale kugu noqdo sidaa darteed meelahan line iska dhigo laakiin trade-ka ma geliya marka waxaan sameeyey meelahan aan kaga qabtay dan waxaan dhihi karaa baan iri yani still confirmation ma hayo inuu meesha kaaga soo noqdo so waa inaad sugto right so that moment uu dhaafay muxuu siiyey confirmation in line-kan horizontal leh so that time maxaan sameynayaa line-kan waan ka gudbaya uma baahnin line-kan marka right because line horizontal cusub ayaan helay waana meesha aan rabay marka horizontalkan waa mid xoog badan marka hore resistance-iga aan ka cabsanayay maadaama uu ii dhaafay hadda maxaan leeyahay halkaas line support oo qurux badan ayaan helay so that supportigaas maxaan sameynayaa waxaan sugayaa supportigaas inuu noqdo line noocaas because support warba inuu kor u kaco ma supportiga muxuu noqonayaa line noocaas oo kor u kaco haddana at the same time ma garanayay inta uu kor u kaci karo because halkaas dhowr jeer baa laga soo celceliyay still confirmation baan u baahanahay inaan meel fiican gaaro right expanding yani meelaha inta badan trading-yada laga galo ee ugu qurux badan waa meelaha expanding-iyo ka dhaco trading expanding meesha uu ka dhaco ayaa laga galaa because trendiga intaadan aadan u dhaqaaqin expanding meesha uu ka galo waxaa ka horeynaysa meelma uu isleeg eg yahay trade-ku sida tusaalahaan halkan oo kale trade-ku waa blue haddana casaan isagii baa la eegaa isaga meelaha waa lagu khasaaraa inta badan so at the same time waad arkaysaa wax isleeg eg so expanding-gu waa noocan oo kale markuu soo yar kala baxbaxayo right soo kala baxbaxayo si hadda intan oo kale uu isku soo noqnoqday intan uu isku soo noqnoqday haddii aad hadda hoosta arki lahayd wuxuu ku tusi lahaa calaamad inuu isku soo noqnoqday waxaas so maxaa dhahay line-ka horizontalka ani kor ha ii dhaafo confirmation baan helaya the moment inaan haddaba confirmation helay maxaan sameeyey waxaan dhigtay line kale oo yar si aan oga dhigay sidii kii goldenka asxaabta goldenka garanayaan goldenkii oo kale waa goldenkii oon anigu sameeyey on fiir goldenka saas u sameysay goldenka laba line ka kooban right marka at the same time halkan uma nair online cusub ka sameystay oo sidii goldenka oo kale fiiriyaan ku tus saas again isagii oo kale oo la eegun asagoo kale on again ayaan sameeyey whatever so hadda uma baahnin oo yani waad fahantay aan ka wada waxaan ayaan rajeynayaa waxaan ka wada so aan ku tusa line-kii marka sida uu dhaqaaqay aan sameeyey confirmation baan sameeyey wuxuu ahaa line-kan horizontalka ha isku aamin still mid kala dhigo tamam
midka kale aan dhigtay waa ka yar xagaarka colorkaas aan ma garanay wuxuu yahay ayaan dhigtay so maxaan sameeyay yellow so waxaan sameeyay inaan aan dhaho confirmation u dhig because dhowr jeer baa la tijaabiyay waa ka tajusaya waa aragtaa so bal iska ilaali hubso sida moment uu barta ani ii dhaafay ayaan buy ku dhiftay waa ka aan tradekiisa aniga galay tradekiisa kaan galay weeyaan as you can see hadda buygan adiga kula weyn yahay aan halkan saa u jeexay because marka ayada hour baan ka fiirinay marka ayada hour baan ka fiirinay as you can see waxaan inuu hoos soo noqdo ayaa laga yaabaa laakiin up baan u kale aniga right because line kan marka ayada inaad u isticmaasho support marka kugu dhufanay up laakiin haddana ilaa inteeba up socon karaa baan dhahay ilaa intana socon karaa xasaankaas ma iska dhigay xasaankaas sababta aan u dhigay xawayaan because dhowr jeer barta laga heliyay right meelahaas laga heliyay dhowr jeer in the past and the present also see so line kan wuxuu ku tusayaa meelahaas inuu soo gaaray waana meelihii laga celinay right so marka waxaan dhigtaa ani line ka xasaanka barta so adi marka maxaad sameyn kartaa aad rabto waxaad sameyn kartaa inaad marka aad u gasho bahalkii long line laakiin shorty waxaas inaad u gasho banka wada long position inaad u gasho long position laakiin waxba long position uma gelina meelaha markuu sacayaan aan iska cancel why because uma baahna ilaa halka inuu gaaro confirmation khasam ma because uu ka soo noqon karaa meel ka hooseysa right so ani meelahaas kana ku cancelay baylehed meelahaas aan ku cancelay right intaasna tiriiq qurux badan weeyaan laakiin haddaan cabiro hadda inta uu noqonayo bib inta hadda bib uu noqonayo bartan laga bilaabo bartan feeri labaatan iyo laba bib wait still wait waa bib fiican right haddaan online-ka ilaa kor buu soconaya ilaa halkaa because bartaas laga soo celiyay mar waana meel qurux badan weeyaan see dhowr jeer buu ahaa resistance because feeri line-ka aad jeexanayso waxaa fiican mar walba inuu support resistance ku dhufto dhowr jeer support resistance in that moment maxaad helaysaa confirmation aad qurux badan so ana waxaan dhahaa line-kan dhowr jeer ayuu support resistance so that moment maxaan dhigi karaa line-ka bartaas baa laga soo celiyay halkaas ilaa halka waan dhigan karaa cabir waan dhigan karaa 33 pip waan dhigan karaa laakiin ana meelahan aan kaga dhuftay 10 pip waa caadi because ma hubin line-kaas in meeshu ka soo noqon karo and waxaan wax looga malaha inaad adiga mar walbana aad dhaad hunguri maya saas weeyaan lama ahan waxa weeyaan adiga waxa aad mar walba ka hubitaanka adoon shayga isagoon weli dhicin ayaa haddana waxaa jirta mar aad aaminayso inaad waxa hubto oo kale so sidaas oo kale markaad shayga aad u yar malaynayso inaad sida aad u badan tahay aad u malaynayso si ka xoog badan u malaynayso haddii jirto sida kooda xoog badan iska qaadaya aan saasaan marka doortay anyway أنا سيدها سامعني لكن ما تكرتها عن فيرنا بل 1 hour 1 minute كيسة and 15 minute كيسة probably see 15 minute كيسة ولي وأبقى روح بدن يعني أنا ما أسكت كنسل لكن هذا وضع لي هذا أبقى روح بدن من نقطة هذا نكون عبره again I don't know فير نكون عبره وأبقى روح بدن really وأبقى روح بدن whatever 1 minute كيسة إك wow 1 minute كيسا كدريا so this moment إن شاء الله وأنا analyze كرينينا هل analyze أم لبا analyze من كتيجينا أنت إنه فيديو قدامين وفيتشر كيسا إنه ولي كارين سي مركز إن شاء الله فيديو قدامه إنه طوبة إنه لبا analyze هوري إنه ما عندها مركز هذا فيديو أنكو بريدكت كريني فيديو صوص على رسالة كيسا سنة أنكو بريدكت كريني إنه قناة إن شاء الله أن فيديو قدامه إذا كل شيء سيادة وعرفتنا رسالة إن شاء الله تعالى لكن إنه هرت وانا سيدا إنه أورجنا إنه أورجنا هرت إنه أورجنا إن شاء الله أيان إنه تسوي فيديو كان هنا أيان كولا فيديو كان إن شاء الله سادركتين وحنا نقضي محل هاي ترند قرح بدن يقول بنو نقضي so trendiga saddexaad maxaan dhahay analyze kariya asagana waxa weyn USD Japan so USD Japan kan tagaya USD Japan wow USD Japan here so USD Japan ka asaga xataa waan si analyze karina waxaan sameeyay line trend oo noocaas u dhaqaaqay inuu kor u dhaqaaqi karo runii been wuxuu noqdaa anagna because I'm not sure though علامات kale aan ku sii sameeyay inaad adi arkaysid ma aan ma garanay inaad arkaysid laakiin hada u fiirsato maxaa halka ku arkaa waan symmetric ayaan dhayaa anag symmetric aan halka ku arkay laanka symmetric-gaas uu soo socda hadaan fiiriyo waa symmetric tamam laakiin symmetric marka hore down trend u soo socday buu right maxaa taqaana symmetric down trend u soo socda inta badan inuu down trend noqdo aan marka symmetric waan barta ku arkay aan ku 15 minute ka dhigo maybe 15 minute ama 30 minute inaad si qurux badan u aragtid 30 minute oo aragtaa maxaa sameeyay line kan down trend buu ahaa though ma aqaan inaad xal trend ku jirtay
waxaan sameynay prediction noocaasa inuu barta ka kacay line-kaasi uu up aadayo si up ayuu noo aaday laakiin down ayuu soo aaday waa sida aan kuu sheegay down and the moment in hadda sugayna xawiyaan line-kan inuu mar kale down noogu dhufto uu up noqdo insha Allah jawaabta waxaan ka fiirin doonaa video soo socda laakiin trend ascending and waxaan ka wada symmetric line-kan down trendiga sida u socda ayaan kuu sheegay si qurux badan buu dhaqaa so symmetric waxaan ka wada symmetric line maxaad u taqaanaa symmetric line down trendiga in yaa maxaad ugu cadayni kartaa aan ku tusa cadaynta aan aniga arkay no line color ka bedelo colorkan waan ka haystaa use that pinky aba hadda rabtid waxa weeyaan symmetric line kan down trend buu soo ahaa so that moment uu igu dhuftay bartan hoos u soo dhaqaaqay right see symmetric line isku soo noqnoqday markaa right so symmetric line inta badan down trendiga soo ahaa muxuu noqdaa down trend so the moment uu down trend noqdo kii uu ku jaray ya kan uu ku jaray maxaad u isticmaashaa support waxa ka wada resistance so maxaad sameynaysaa wuu soo jaray idan maxaan u isticmaalayaa ku tilgeliyaa line noocaas oo kala and as you can see waxaan sameeyay waka the moment uu bartan isoo dhaafo banahay down trend baan helayaa ana alxamdulillah wuxuu noqday down trend laakiin wali down trend waxa ma noqonino meesha in noo soo gaaro ayaan rabaa sababtoo ah moment uu barta isoo gaaro waxaan fiirinayaa fiirada ku degdegin waxaan fiirinayaa hal meel oo kale because waxaan ma hubin hal meel oo kale oo ku sii hubsanayaa jirta line-kan inuu bartan fiiri anoo halkaa ka eegaya ilaa barta inuu iigu dhufto oo ii ahaado kaasi support line still halkan ilaa halkan maxaan dhiganayaa markaa short line waxaan ka wadaa long position laakiin long positionka aan dhiganaya aan ku tuso qaabka aan ka dhigaya long positionka aan dhigaya waxaan sameynayaa bartaas idig barta idig no bartan idig yeah because meelahan aan ku talagelayaa inuu soo gaaro line-ka waxaan sameynayaa stop loss-kayga waxaan ka dhigayaa barta meelaha why because line-kan dhowr jeer hore la tijaabiyay waan sugayaa hadduu soo dhex galo isagoo wali waan u kaadin laakiin momentum uu line-kan hoos u soo dhaafo line-kaas si aan iga soo horjeedo ayuu u dhaqaaqayaa waxayna u badan tahay line-kaas markaas iyada fiiri that moment maxay u badan tahay line-kaasi in uu down trend noqdo noocaasa down trend noocaas inuu noqdo down trend noocaas oo kale yani fiiri down trend noocaas kale inuu noqdo oo yani hoos u soo dhaqaaqo so marka ayada waxaad sameynaysaa adiga mar kale hadii waan khasaarisaha ku joojin waxaad sameynaysaa barta ayada ka gal trend down trend marka ana waxaan sameynayaa trendigan profitkiisa waxaan ka dhigay probably up meelahaas oo kale ay dhig profitkiisa sorry waxa ii yaala meeshan line-kii hore profitkiisa up meelahaas oo kale probably waxaan rajeynaynaa insha Allah videoga dhammaan resultiisa eegi doona line-kan sida madowga aan ugu qeexnay bunk uu noo soo raacay oo kale inuu noogu soo dhaco moment waxa ka hit kareen inuu kor u dhaqaaqo laakiin still waxa noo artay ilaa 1 minute aan ku fiirino because 1 minute ka waxa weeyaan 1 minute ka sidoo uu soo gaaraanayo 15 minute ay horta still uu soo socdaa ma sha Allah weeyaan so still under wait still line kala bartan ka dhaqaaqaya dhowr jeer oo halkan kugu dhuftay waxba xataa inaad sii daaliso oo halkaas gaartidna waad sugi kartaa waa sax because asa 1 hour markaan dhahayno way ka duwan tahay asa 1 hour waan sugi karnaa oo line-ka inuu bartan u soo dhaco sugi karnaa laakiin mid kale ayaan sameyn karnaa oo iyadoo ka sii wanaagsan still ya wali video ma dhamaanin waxaan sameyn karnaa inaan line horizontal bartan dhigano tamam line-kan horizontalka waa mid asaguna adag ma yara ma dhib yara line-kaas horizontalka waa halka so the moment oo line-kan horizontalka ku soo dhaafo bartan kugu soo dhaafo halka maxaad sugataa sell sigo ilaa halka inuu kugu soo dhaafo sell halkaas ayaan sugaynaa marka aan line-kan hadda pinkiga kala jeexo amaba aan isdhaafiyo si aan line kale ku qurux badan ku tuso marka maxaan sameynayaa inaan barta kaga baxay ka soo qaad ani trendiga mar waan ka baxaya laakiin trendiga aan sugayna inaan barta kaga baxay ka soo qaad so maxaan sameynayaa moment oo line-kan cagaarka ay soo dhaafo waxaan hubsanayaa inuu soo dhaafo the moment uu soo dhaafo waxaan rajeynayaa line downka waa sidii aan ku sheegay line-ka downka ka bacdi markaan rajeynayaa in uu aan isdhaafiyo kan inuu markaas bartaas ka dhaqaaqo and then up markaas inuu up trend ku dhufto sidana arkaysid madowga up trendiga inuu ku dhufto up trend waa fursad kale insha Allah video kale ayaan ku eegi resultigaas haddii kalena halkan uu taagan yahay hadduu i tuso inuu soo dhaafi waayo confirmation isiyo inuu dhaafi waayana inaan up trend ku dhufto aniga oo trendiga kan ka dhiganaya right
trending anoo kan ka dhiganay inaan uptrend ku dhufto ilaa halkaasa uptrend halkaasa so uptrend halkaasa inaan ku dhufto ayaan hadda tradekiisa geli karaa because hadda confirmation heli karaa because still 15 minutes baan ku jirnaa hadaan 1 minute confirmation fiican ku helno gelina and as you can see confirmation fiican baan helay probably line kaas kor buu dhaqaaqay up inshallah and video dambe ayaynu ku eegi though waan ku jeexaa isaga waa kana marka ani hadalkayga hadaba waxaan ku yiri line kan oo supportive ku noqdo qurux badan so up ayuu ku noqonay the moment bartan laakiin ii soo dhaafay maxaan dhahay line kaas maxaan u dhaafay maxaan soo geliyaa sell oo halkaas sell oo halkaas duu soo dheeriyaa 1 hour ka fiican ugu arki leedahay sell oo halkaas 15 minutes kan kugu celi saad aragto sell oo halkaas ilaa halkaas ayaan u geliyaa ayaan dhahay so right now waxaan leeyahay hadii confirmation kale si bartaasna up ilaa halkaas ayaan u geliyaa insha Allah saa la socdo videogaas mar hore waxaan isku dayaa inaan qoraal raaxiyo hadalkan erida insha Allah si aad maxaan dhahay aad xasuusataan videogii hore baa idin tustoona insha Allah markaas videogii hore ayuu noqon marka videoga la gaaro insha Allah ta'ala marka waxaan eri in xasuusnaato fadlan hadii aad la soconin fadlan channelkeena subscribe kare waan socon doontaa waana insha Allah waxa weeyaan waxaan dhahay waa safar aynu bilownay oo socon doona muddo insha Allah aad u fiican ilaa aynu ka gaarno darajo aad u sareysa insha Allah waan wadi doonaa insha Allah fadlan ani waxaan ka codsanayaa inaad i taageertaan because wax walba qofka marka uu kula garab taageero ilmaha yar hooyadii baa taageero la soo garab taagan laakiin qofka marka uu weynaado asxaab iyo yeeshaa iyo dad isku fiican yihiin waxaas taageeraha asxaabta uu ka helayo dadkaas kale ayuu ku wada xaqiiqatan marka trending iyo trade laga hadlayo wax trade gareynaya waxa weeyaan Soomaali bas maahan dhammaan adduunka kula trade gareynaya so hadii aad qof walaalka asiiso maxaan dhahaa aad siiso taageero in haw arkin bas inuu Soomaali la tartamayo dadka lagu tartamayo training marka adigu taageero si adiguna taageero asay waa un la soo taageeraya meeshan marka waxa weeyaan fadlan aniga waxaan ku yiri mar hore hadii aad fadlan rabin inaad trade iyo waxa bilowsid oo adigu waqtigaadan u talagelin oo diyaar u ahayn anigu diyaar baan u ahay adigu ani taageero ila wad insha Allah si maalinta adigu u bilowdo baan ku taageero hadii aad rabto inaad bilowdana ila bilow oo ila analyze kare soo bar casharkaaga anaka aan soo baran aynu isla analyze kareyno casharada ay ardaydu isfahansiiyaan wax ka wanaagsan ma ay isfahansiiyaan ka aynu isla wadnaa ku yiri insha Allah waxaan idin rajaynayaa khayr iyo video dambe resultiisa inaynu ku eegno insha Allah dhamaantiin asxaabta waxaan idin leeyahay is arag dambe mar kale intaan khadka ka bixin aanan ka bixin fadlan subscribe